Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahay qaaliga soo dhawaada. Routiinkan waxaan duubay maalintii gabadheeda aan dhalaaye. Maalintaan dhala kadib ayaan duubay. Mar hore rabo inaan soo geliyo sidaan hore ugu sheegay fiidiyoyaal badan ii duuban. Laakiinse waqtigii lagu soo saari lahaa ayaa la laayahay. Marka maalintii waxaa igu dhacday adiin mar 3 galabnimo ayaa fool qabatay ilaa iyo 5 subaxnimo ayaa foolanaya. Marka qof foolanayana ani ahaantii horta cunto ma cuni kari arano dadka kale. Ana waxaan ahay dadka markuu xanuunka badan qabto man tago marka laba aheeyday waxa ma cuninbo. Baahi xun ay u dhagneed. Marka by the time gabadheeda aan dhalay ano baahi xun ee haysa dhalay haddana 5 am aan maraayay subaxdii hore maxaa la dhakhtarka maqaaxidiis ku dhex taalo waa la xiray. Anina waa isxariibiyo waxa dhahay cunto marib waxba ay keenina anaabo maxaa la dhahaa waan haween bar iyo waxaas dadka inaan dhibo maribin anina wax ma soo qaadanin because ma ku ogolaanba inaa wax cuntid. Meeshan sharciga yaala waxa waaye ilaa aad dhaliis afkaada wax ma saaraysid waxa cunaysaa le biyahaada iska kakabaa lagu leeyahay iyo ice-ka barafka taa biyo laguma ogolo inaa baraf dhuqdhuqdid le waaye ice-ka. Bas waxdii markii aan dhalay gabadheeda 5am waxay ahayd almost 5am iska dhay 5 subaxnimo. Waxaan dhalay 4:45 daqiiqo marka 5 le waaye ma hoos waxdii. Marka haddana meesha way xirneyd saa u sugaya waxay igu dantii u qasabtay inaan sugo ilaa iyo 9 subaxnimo. Bas 9 subaxnimo ano baahi ahayso hawace waxaan dhahay cunto ii keena marka cuntadaaneeto inaba caadiga ahayn ii keena dig aan isku siiye mishaari iyo shahwa yaa u baahanba shah ii keena la dhahay laakiin mishaari iga daaya dhahay calool weynaad ma kareene. Meeshaneeto waxa waaye biyo cad hadaa cabtid hataa naaska caanaha ku keenayaan lagu dhahay meesha oo dadka lagu guri jiray shah iyo caano Afrika waxaa xasuustaa marka habartay iyo ee dhalaan hal dhijir umusha shah iyo mishaari la geyn jiray mugta meeshaan ma jirtaa ku dhaawaa anoo iska ilaaliyaa kuleeyadii caano iyo mishaari iyo shah waa lagu yaabaa caloosha ku fakanee hadaa xaalka ilaahay ogyahay. Marka caagan biyahan weyn meesha ku yaalo markuu ka dhamaado waa lagu soo shubayaa alaabtan waxaan ku dhahay hadda codka aan duuwayo mar labaad inaan cunay iga haysaabo. Haddana waxay yara tusinayaa musqusheeda meesha igu dhex taalo baashaas eeto bluega waxa lagu guraa dharka wasaqada taraashka yar waaba garanaysiin waxa lagu sameeyaa musqusha wataasa meesha yar waji dhaqa bas cuntada markaan soo dhameystay meesha waji dhaqa imaaday ilkaha caadeysanaya wajigayga dhaqanaya kareemaheena iska marsanaya waa markii la dhahay waa baxaysa markuu is diyaarinaya sifa ugu soo baxo. Marka walaalahay inta uurka leh ilaahay idin fududeeyo is very hard xanuunka soo mara leh ilaahay idin fududeeyo inta u dhiman tahay inta awlaad haysanin ilaahay waxa uga baryayaa inuu awlaad saalixiin uu siiyo oo baariyaal amiin. Inta ilmaha haystana ilaahay anagana ku jirnana ilaahay noo barakeeyo. Marka ilkayga iska soo caadeysanaya soo diyaarinaya musqusheeda iyo marka hore waxay ahayd waxaan rabay inaan qolka aan video kasoo duubo sariirta iyo meel walbo laakiin ado xanuunka waa ma wax duubi kartaa beena isku sheegay taankan qatar iska dhigay kaamirada qaatay hada soo video soo diyaarinaya balqamashintan dhahan tage xanuuna dhabu inaad xanuunku hayo kaamirada soo xasuusanayo kala alaabta meesha soo jeedo waa taqaaneen gabdhihiina. Okay videogaas aan jeclaystay inaan soo gudbiyo ilaahay idin fududeeyo. Wajigayga la iska soo dhaqanayaa kadibna kareemkayga waxayga dhanaa isku soo siinayaa wajiga waa soo qalajistay suurumkaas yaraan wajiga dhac ku siisanayaa wabiga sii dhamaanayaa mid kalena oo dhageysto insha Allah
sunscreen kana dhac isku siinaya maxaa la dhahaa BB cream yariisa marsanaya wajiga wax yar waxaan rabaa marka dadka iga hor imaada in la dhaho maxaa qofta reer akhraadka in la dhaho marwi moogtahay marka waxaa qatar la iska dhigaano inta yaraa la marsanaa hawaaya waa hurda la'aan haysa ani ma aha leeyano beena la sheegaa bahalkaas hoosta dhacdhacdhac oo siisanaya marka waa kana hadda noo soo diyaar garownay qolka kaas uu egyahay inta yaraa ka arkaysiin beebideeda gaarsiidkeeda ku ritay malaan qolka ka saare wax yaraa noo dhiman inaan baxno marka waxaan sugeynaa le warqadii intiina looga soo diyaarinayo waabana loo soo diyaariyaa hadda everything dhacdhac siisanay meeshaasna waa meesha yaroo beebiga lagu seexiyo markuu saa usoo baxo sifa uu qabow u dareemin warmer waaye like kuleel soo baxaya heater yar sariirteedu taasaa alaabaheyga wixii dhan bacdaasaan ku gurtay meeshaan fancy ma jirto bac la kusoo aruuriyay ayaa la dhahaa xaafad ma ageen waan dhaqi doonaa insha allah marka saas uu egyahay roomkeyga in yar dhacdhac